maalin waxaan wanaagsan meel kasta joogtaan kusoo dhawo videogeena maanta oo kusoo diyaariyay anigoo ah Cali Maxamed Ismaan Cali Baashi insha Allah videogeena maanta waxaa kusoo qaadan doonaa sida email loo diro gaar ahaan Gmail inkastoo ay ka sameeyeen maaragtay Hotmail-ka ama Yahoo marka email la dirayo waa isaga mid dariiqada laakiin waxaa video kusoo qaadan doonaa sida Gmail-ka looga diro email. Okay, haddii aad leedahay Gmail way kuu sahlan doontaa marka soo gasho page-kaada ama qaybta sare URL-ka marka qorto gmail.com waxaa imaanaysaa page-kan san ayuu yahay gudaha marka soo gasho Gmail-kaada. Okay, marka rabto inaad email dirto qaybtan sare ee bidix compose ayaa la taabtaa. waxaa rajaynayaa inuu English ku joogo ama luqad kale ku joogo qalinkaas ayaa ka arki kartaa compose ayaa ku qoran. Okay, qaybahana waa badhamo kala duwan waxaa mid kasta ku jiro emailada qaybaha kala duwan ee emailada marka la soo qaadan doona emailada lagu soo diro qaybtan dhex ay imaan karaan inkastoo ay booski taagan yihiin ee maaragtay isbedbedeli karto hadba naqshada aad doorato. Okay, hadda videogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay kaliya sida email loo diro maadaama email dirano waa inaad taabanaa compose marka furto qaanad yar ayaa dhinacan bidix hoose midiga hoose laga siinaa. Okay, qaanada waxaa u koreeyo new message waxaa ku jirto waxaa ku qoran to qofka loo diray ayaa meesha lagu qoraa. Subject waxaa ku qoraysaa ujeedka ama wuxuu ku saabsan yahay emailkan. qaybtan dhaxane waa body meesha informationka aad ku qori lahayd. Okay, qaybaha hoosena u soo laaban doonaa. marka hore waxaa tagaynaa qaybta to qofka loo dirayo ayaa meeshan ku qorinaa. haddii aad hore u taqaanay emailka waa soo koobiyan kartaa waa keensan kartaa laakiin haddii aad meel ka akhrinaysid ama qoraal meel kugu qoran yahay toos ayaa u qori kartaa. tusaale ahaan aniga ayaa isku diri doono emailkayga kale ayaa u diri doonaa marka ali qoro oo isoo bixi doona ali@gmail.com marka isoo baxo laba dooq waa samayn karaa hoos u tagi karaa okay ayaa taabanaya ama tab waa taaban karaa tab ayaa taabanaya wuu soo qaadanaya. Okay, qofka rabto ku sii dari kartaa Ahmed marka xarfa hore qortid uu ku soo dooran laakiin qof kale oo igu jiro oo contactigayga ma lahan emailkan waa email cusub oo dhawaan sameeyay. Okay, qaybta ku xigta waa carbon cc qofka copy aad ku daraysto haddii aad rabto shaqada kale shaqaalayaasha dhan waa ku dari kartaa qofka bosska ama meesha managerka copy u dhigi kartaa si uu la socdo waxa isku dhacayo ama kiiskan ama projectkan meesha marayo. sidoo kale BCC-gaas waxaa waaye carbon copy qofka haddii aad taabto waa la soo qoraa email kale ayaa gelin karaa hadduu ahaado ku-xigeenkaada ama qof kale aad rabto inuu emailkan la socdo wuu arki karaa emailka wax ku qoran laakiin dadka loo diray emailadooda ma arkayo markaas. Okay, haddii aad rabto carbon copy waa dhigi kartaa oo waxa isku dhacayo dhan dadka loo diray iyo asiga iyo kulli wax kasta wuu arki karaa waa ku qoraysa emailkooda. hadda ma u baahnayn labadooda inaan ku qorno marka waxaa sameynaynaa subject ay qorinaa. subject markaad tagto waxaa qoraysaa emailkan wuxuu ku saabsan yahay. Okay, ka hor intaan qorin subjectiga waxaa sameyn karaa qaybtan sare waa weyneyn karaa haddii arab hoos waa u dhigi karaa oo waxyaabo kale soo sameyn karaa howlo kale ayaa soo qabsan karaa kadib ayaa usoo laaban karaa. hadda waa weyneysan karaa page-ka wuu iigu balaartay oo dhaxda ayuu soo istaagay. Okay, markaas subject ay qoraya waxaa qoraya markaas salaan qaali ama waxay noqon kartaa waxay rabto howlo ganacsi tahay ama shaqada tahay ama waxbarashada maaragtay iskuulka u dirayso marba ujeedka wuxuu yahay ee meesha subject lagu qoraa. kadib qaybtan waxay noqonaysaa saddex qaybood. kow waa qaybta maaragtay emailka hordhiciisa waxyaabaha ugu horeeya qoraysa emailka waa salaanta sida salaamu calaykum waa soo gaabin kartaa. haddii ay shaqo tahay ama qof dad gaalo wax u dirayso kale salaamu calaykum kaaga baahna hi ama hello iyo marba meesha joogto luqadeeda ayaa lagu qoraa kadib ujeedka ayaa lagu qoraa. haddii rabto salaamu calaykum qofka u diraysa email magaciisa ayaa raacin kartaa ali haddii aad ku daro at oo fiirso at haddii raacsiiyo ali wuu soo qaban karaa isla mar anigoo emailka lii soo dirayo atna waa la soo gelin karaa ma u baahnayn laakiin hadda waxaan sameynaynaa hoos ayaa u degaynaa kadib waxaan qoraynaa emailkan
emailkan waa tijaabo oo kaliya. mahadsanid. okay, markaa soo qorto emailka salaan ayaa horeyso, kadib ujeedadaad ayaa meeshaas qoreysaa, kadibna waxaa ugu dambeeyo mahadnaq iyo ama signatureka waa kusoo laaban doonaa iyadana qaybtan hoose ayaa lagu soo qoraa. kadib waxay imaanaysaa qaybtan hoose send waa dhigi kartaa, ama haddii aad rabto qaybtan hoose falaarta waa sii furi kartaa. waqti kale waa ku xiri kartaa in emailkan uu baxo. schedule haddaad taabto taariikh kale ama beri markii la gaaro subaxii oo kale waa u diri kartaa, tomorrow afternoon beri galab oo kale. ama haddaad rabto taariikh gooni ayaa qabsan kartaa oo emailkan aad ku dirayso. haddan u baahnin waxaa u baahanaa emailkan si toos ina ugu dirno. cancel. kadib waxaa teginaa fontigan uu ku qoran yahay. haddii aad rabto in wax ku bedesho fartiisa meeshas ayaa ka dooranaysaa, kadib farta rabto ayaa qaadanaysaa. okay, inkastoo farta oo defaultiga ama uu lagu keenay ay ku fiican tahay markasta in lagu daayo. haddii aad rabto qaybo ka mida inaa calaamadeyso ama farta aad ka bedesho, waa calaamo marka hore waa highlight ay kusinaysaa, farta bidix ayaa ku heynaysaa muuska, kadib ilaa meesha rabto markaa gaarto ay amaanaysaa farta kalarkeeda kala duwan. okay, inkastoo ay ku fiican tahay marka aad rabto email professional, waa dee aan la shaqo dalbanayso ama waxyaabaha shaqada la xiriirada tahay, waxaa fiican in farta hal nooc lagu daayo. haddii aad laakiin dad familka ama qaraabada ama asxaab ama email formal ahayn hadduu yahay, kalarka waa kala duwanaysiin kartaa. okay, sidoo kale waxaa raacsiin kartaa website oo kale. tusaale ahaan website-keena ka qorina www.kabaro.com. okay, haddii aad rabo website-kan qofka inuu soo booqdo, waxaa lii karaa fadlan soo booqo website-keena. okay, haddii aad rabo website-kan inaan ku xiriiriyo linkiga website-kan si toosa, marka hore waa calaamadeynaya, kadib waxaa tagaya link markaad tago link ayuu soo doortay. okay, kadibna okay ayaa taabanaya. hadda wuxuu ku xiran yahay linkiga, markii uu qofka u dirto toos ayuu tagi karaa website-ka. okay, kabacdi marka halkaas soo gaarnay qaybahan kale oo fontiga wax loogu bedelay ma u baahnin inaan ku mashquulno. waxaa markaas kadib samayn karnaa attachment. haddii aad rabto inaad document file soo raaciso, halkaas ayaa furaysaa. markaa furto website-kaada ayuu gudaha ku keenaya. kangaroo ayaa soo qaadan kartaa ama sawir ama wax kugu jiro markaas ayaa soo gelin kartaa. qaybtaasna waxaa ka arkaysaa maaragtay documentiga soo galay weyninkiisa. inta badan google-ku wuxuu ku fiican yahay documenti waaweyn waa lagu diri karaa, inkastoo asigana xuduud leeyahay. okay, qaybtaas wuxuu kugu sheegaya 3,000 oo kilobyte iyo maaragtay pdf-kan leeyahay. markaa soo raaciyay pdf-ka, waxaa muhiim inaad sheegto qofka maaragtay u dirayso, inaad u sheegto fadlan fiiri lifaaqa hoose. okay, si uu maaragtay u iloobin inuu furo faylka. haddii aad soo raacisay, waxaa fiican inaad sheegto in maaragtay emailkan uu fayl la socdo, si qofka maaragtay uu maaragtay waxa u soo dirtay oo uu ku hilmaamin ama uusan maaragtay u helin. okay, waa hubin oo kaliya. kadib waxaa taabanaynaa send. markaad send taabato waxaa haystaa 20 second, kadib ma bedeli karta emailkan. hadda undo haddaa dhaho emailkii waxaa haystaa 5 second oo kaliya in aad maaragtay emailkaa dirtay ka soo ceshato. haddii uu maaragtay 5 second ay dhaafto, undo ma samayn kartid. view message, haddii aad rabo message-ka aad diray waa fiirin karaa. inta ayaa taabanaya. hadda uu iga baxay ma fiirin kari. haddii aad rabo inaad fiiriyo, waa ina taga send emailada aad diray. okay, waa kaas salaan qaali, waa kana midka aad diray. okay, markasta midkii aad diray ayaa u soo koray. waa kana midka aad diray, waxaa la socdo pdf. sidaas ayuu marka emailku egyahay. okay, haddii aad rabto email kasta aad dirayso in uu la socdo saxiixaada oo maaragtay ahaado markaas saxiixaada professionalka oo email kasta markaad dirayso hoos inuu kusoo qormo, waxaa laga helaa ama la sameeyaa qaybtan setting ayaa tagaysaa. setting markaad tagto kadib all settings ayaa tagaysaa. haddana naga xir.
kadib qaybta hoose markaa u degto signature markaa aragto waa kana qaybtan signature. Okay, create new hadda mida igu jiro hadda create new waxa bixinaysa ali to ama work shaqada signature-kiisa waa kana create copy paste kan ka bixi okay kadib waxaa taabanaya save qaybta hoose waa inaa u degaa save. Okay, hadda haddii aa ku laabto inbox compose signature markaa furo u fiirso waxaa soo baxay ali caadi iyo ali work markaa taabto qaybtaas hoose way diyaarsan tahay. marka informationkaas ayaa meesha ku qoraysaa kadibna toos ayaa u diraysaa. Okay, kaasina wuxuu ahaa sida emailka signature loo soo geliyo. Okay, sidoo kale u fiirso emailada lagu soo diray iyo kuwa akhrisay iyo kuwa la akhrin way kala duwan yihiin. kuwa la akhriyay waa calaamad color gooni ay leeyihiin, kuwa la akhrin colorkaas ay leeyihiin. hadda emailkan ugu dambeeyay la soo diray asa ayaa u koraysa saacada la soo diray waa qaybta u sareysa ayuu ka sheegaya. Okay, marka furo emailka waxaa haystaa laba dooq. hadda dhaho reply ku celi qofkii kuu soo diray ama forward qof kale u sii diri kartaa. haddii arabto emailka gudihiisa wax ku jirna si ogaato la saddexdaas dhibac ay taabanaysaa waxaasaa ku dhex qoran. haddii arabto inaa xirto waa iska xiri kartaa. Okay, markaa daaro forward waa tii taaban karaa qof kale u sii diri karaa. wax emailka hore usoo qaybtii hore loo soo qoray way la socotaa. markasta waxaa fiican in aa ku dayso wixii hore sida qofka u diraysid oo forwardka u samaynaysid uu ogaado informationkii hore waxyaabihii isugu dhacay. Okay, meeshaas ayaa ku diraysaa. hadda u baahnin kaasina wuxuu ahaa qaybaha muhiimka oo emailka loo diro. haddii ahaan lahayd gmail ama hotmail ama yahoo intaba waa isaga mid. waxa kaliya kala duwan yihiin waa naqshada iyo meeshay wax ku yeeliin emailka. Okay, videogan maanta waan ku soo qaadanay sida loo diro email gaar ahaan gmailka. intaas ayaa kusoo koobina insha Allah. fadlan nagu taageer inaad like saarto si uu asxaab badan u gaaro. subscribe ku noqo kanaalkeena si uu videoyasha ugu dambeeya kusoo gaaraan. waana mahadsan tahay. waxaana kuu soo diyaar videogan anigu Cali Maxamed Baashi waxaana inoo ballan insha Allah video kale.